daraasad cusub oo laga sameeyay dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday da'da ugu habboon ee guurka. Daraasaddu waxa ay sheegtay in guurka xilli hore ee nolosha inuu kordhiyo fursadaha guurka ee lagu xasili karo si muddo dheer uu xiriirkaasi u sii jiro. daraasadan oo laga sameeyay jaamacadda marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano USU Utah State University ayaa lagu ogaaday in dadka ugu habboon ee guurka waara uu yahay da'da u dhaxaysa 8 sano ilaa 32 sano. tijaabada daraasadan ayaa lagu xusay in xiriirka da'dan la sameeyo uu muddo dheer sii jiro, sida ay qortay jariirada Independent. cilmi baaraha dhanka sociology-ga Nick Wolfinger uu hogaaminaya daraasadan oo laga sameeyay xog la arooriyay intii u dhaxaysay sanadihii 2006 ilaa 2011. waxayna cilmi baarayaashu isku dayeen inay fahmaan dabeecadaha lamaanayaasha iyo qoysaska gudaha dalka Mareykanka. jariiradu waxay leedahay fikirkii horey loo aaminsanaa wuxuu ahaa in dadka xilli dambe isguursada ee da'weynada isku hela in xiriirkooda ay ilaashadaan in ka badan dadka kale. daraasadan ayaa lagu ogaaday in guurka oo dib loo dhigaa ilaa laga gaaro 45 sano ay kordhiso suurtagalnimada furiinka 5%, halka dadka da'yaraan isku guursada ay ilaashadaan guurkooda iyo xiriirkooda si ka wanaagsan dadka kale ee da' ahaan isku hela. daraasadan ayaa ku dabaqmaysa bulshada Mareykanka. waxaa dhici karta in arrintan bulshooyin kale ay kaga duwan yihiin, kuwaasoo leh nidaam bulsho, dhaqaale, dhaqan iyo mid xuquuqeed oo ka duwan dalka Mareykanka. daraasadan waxay ka soo horjeedaa cilmi baaris kale oo uu sameeyay aqoonyahanka Philip Cohen oo ka tirsan jaamacadda Maryland, waxaana uu sheegay in da'da guurka ugu habboon ay tahay in la guursado ay u dhaxayso 45 sano ilaa 49 sano.